Welcome to my YouTube channel. Kusoo dhawo channelkayga YouTube Product Club China oo idinka imanaya waddanka China. Channelkan waxaan kusoo gudbiyaa ganacsiga China, dhaqanka China, waxbarashada China iyo wax kasta oo China la xiriira. Haddii aad channelkan ku cusubtahay fadlan like, share, subscribe si aad ula socoto muuqaaladan soo gelin doono bartan YouTube oo na sii shargaree asxaabtaada si ay uga faa'iidaan. Muuqaalka maanta aan idin wada waxa weeye haddii aad China wax ka gadanayso oo tahay qof waddankii jooga, qaabka lacagta loo bixiyo, sidee aad lacag u bixin lahayd? Waxaad ku bixin lahayd xawaalad, waxaad ku bixin lahayd TT wax loo yaqaano oo bank transfer, mise waxaad ku bixin lahayd Alipay. Maanta waxaan rabaa inaan kaa dhiso qaabkii aad u bixin lahayd lacagaha haddii aad China wax kaa galaan. Let me ask you a serious question. Su'aal xaqiiqa aan ku weydiiyo haddii aad tahay qof ganacsada oo doonaya inuu lacag bixiyo. Markaad doonaysid in lacag bixisid oo nin Chinese supplier ah lacag u dirtay ama warshad, dhab ahaantii yaad aamintay. Ganacsato badan ayaa waxay dhahaan xawaaladu waxa weeye wax ugu fiican, waana wax muddo dheer aan kusoo ganacsan jirnay inaanu ku bixino. Qaar kale ayaa waxay dhahaan bank transfer wax loo yaqaano ama TT ayaa ka fiican. Qaar kale ayaa waxay isticmaalaan Alipay iyagoo dhahaya Alipay baa fiican. Haddaba intan waan isbarbardhignaa keebaa fiican, mid walbana faa'iidooyinkiisa iyo faa'iidaradiisa ayaan kula wadaagayaa. Muuqaalka fadlan dhamayso. Laakiinse xaqiiqada ayaa waxay tahay mid kasta wuxuu leeyahay khatar ama disadvantage, faa'iido daro haddii aanad fahmin qaabka lacag loogu dirayo. Ganacsi kasta wuxuu ku dhisan yahay alaab soo gadasho ama soo iibsasho, shipping in alaabtii la soo raro, iyo payment in lacag la diro. Saddexdaas weeyaan basicska ama aasaaska ganacsiga. Haddaba xawaaladu waxa weeyaan xawaaladu waa ganacsi ku dhisan qaraabo, kalsooni iyo ganacsato is yaqaan oo xawaaladuhu waad garanaysaan aad bay isaga warhayaan. Faa'iidooyinka xawaalada waxa weeyaan waa degdegsiin oo degdeg in lacagtii ay u diraan, paperwork ama waraaq yar oo rasiid ah oo lacagta in la diro lagu siinayo, iyo number 3 oo ah inaad waddankii ka heliso oo xawaaladu meel walba ay available tahay, ama dahabshiil ha noqoto ama amaana. xawaalado badan baa jira runtii, ama taaj tay doontaa noqoto, micnaha degdeg lacagtii loo diro. laakiinse hal su'aal ayaa jirta, haddii ay wax ka qaldamaan markii xawaaladu lacagtii soo dirta, hadday wax qaldamaan yaad adigu dacweynaysaa, yaad dacweyn lahayd. tracking ma leh xawaalada. disadvantage-keedan kuu sheegayaa, tracking ma leh. tracking waxaa la dhahaa inaad la socoto lacagtaadii inay soo gaadhay, micnaha akoonkii aad ku akoon baa lagu shubaa lacagta sax, akoonkii ma gaadhay mise may gaadhin ma ogaan kartid. number 2 proof rasmi ah ama caddayn dhaba ma haysid. number 3 supplierka Chinese-ka ma fahansana qaabka xawaalada lacag loogu diro iyo qaabka lagu risifayo labadaba. Okay, marka labaad waxaan ka hadlaynaa TT ama bank transfer. Bank transfer waa maxay? waa nidaam ku dhisan hab caalami ah oo sida bangiyada caalamka ay isticmaalaan, oo wire transfer baa la dhahaa, ama TT transfer, bank transfer, whatever waxa doontid u bixi, Swift card sidaa doontid dheh ayaa la dhahaa. 3 faa'iido ayuu leeyahay. number 1 waa official. number 2 transaction record ayuu leeyahay. oo hadhow haddaad u baahatid, haddii ay cidi tiraahdo waxba maad soo dirin ama ma garanaysaye ay howlo kalaba soo kordhaan, in aad transaction record ay leeyahay ood ku dabageli karto oo bankii aadi karto oo odhan karto recordkeygii baan rabaa laga bilaabo bishii 4 ilaa bishii Heblaayo, whatever. number 3 waxay ku fiican tahay orderska waaweyn ayuu ku fiican yahay TT account. orderada yaryar iyo waxa kuma fiicna. laakiinse disadvantage-ka ama faa'iido darrada ayaan ku sheegayaa TT account-ka. number 1 bangiyo waaweyn oo international camal u shaqeeya TT ku soo dira waddankii ma joogaan, way kooban yihiin, iminkaana bilaabeen. number 2 fiigu waa qaali, fiiga lacagta lagu soo diraya waa qaali. number 3 mararka qaar lacagtu way iska xayrmasaa ama waa la xayraya. supplierka Chinese-ka ah alaabta ka gadanaysa ama warshada uu jecel yahay TT-ga uu jecel yahay, laakiin adigu ma kuu fududahay inaad TT ku soo dirto si uu supplierkaagu u receive gareeyo. Okay, iminka waxaan ka hadlaynaa number 3 Alipay baan ka hadlaynaa, ama waxa loo yaqaano Alibaba Trade Assurance ama Alipay ayaan ka hadlaynaa. Alipay iyo Alibaba Trade Assurance waa payment plus protection israaci. payment wax bixin iyo protection oo ka farle inaha wax walba ay protect gareeyeen Alibaba. Okay, faa'iidooyinkiisaan kuu sheegayaa. lacagta lama sii dayn karo ilaa la hubiyo alaabta. marka Alipay ama Alibaba Trade Assurance aad ku dirayso, dispute ayaad furi kartaa. supplierka waa laga xaqiijiyey oo waxaa xaqiijisay Alibaba Company. tani waa meesha ay ganacsato badan ku badbaadeen. waa meesha ay ganacsato badan ku badbaadeen. waxay u baahan tahay account setup, inaad account samaystid, aad fahanto sida loo isticmaalo Alipay, laakiin amniguna uu ka sarreeyaa, micnaha ammaanka ayaa wax walba u horeeya. safety is the first. guntii iyo gunaanadkii waxaan isbarbardhiganaa saddexdii aan ka soo hadalnay oon soo koobaynaa xawaalada TT account iyo Alipay. xawaalada waa degdeg, laakiin protection ma leh amaba transaction record aad dabageliso. Swift ama TT account waa official, waana kala rabo waxa weeyaan alaabo
waa official welibana waa saxdii oo aad buu fiican yahay laakiin waana qaali sidoo kalena baanan badan oo wadankii ku yaala ma bixiyaan Alipay ama trade assurance wax loo yaqaano waa amaan wuxuu u fiican yahay dadka ganacsatada yaryar imka ganacsiga bilaabsa uu u fiican yahay wuxuuna leeyahay supplier protection supplier kan wax ka gadanaysid waa la ka fargareeyay macnaha hadduu trade assurance leeyahay haddii ay wax kaa qaldamaan waa lagu soo celinaya haddaba qaabkeebaad lacag ku diri lahayd best method wadadii u fiicnayd ee aad raaci lahayd waa tee waxay ku xidhan tahay ganacsigaaga iyo qorshahaaga guntii iyo gunaanadkii haddii aad rabto inaad ogaato habka kugu habboon inaad iska ilaaliso in ay lacagi si qaldan kaaga baxdo inaad barato sourcingka si wax loo soo adeegto iyo sida wax loo bixiyo lacagta faallo qor payment soo qor waxaan ku siinayaa free consultation ama la talin free ah oo gaar ku ah haddii aad rabto soo qortaa comment soo qor payment waxaad soo qortaa comment ii soo qor payment waxaan ku siin doonaa free consultation amaba la talin gaar ah oo aan kaaga dhisayo qaabkaad wax u soo adeegin lahayd iyo qaabka lacag u bixin lahayd fadlan soo qor comment haddii aad muuqaalkan ka faa'iiday in la sii sheergalay asxaabtaada meel fogna gaarsiiyey inta ku kulmayno muuqaalkan xiga waxaan idin leeyahay fi amaanillah salaam